warbaahinta Soomaaliland ayaa maalmihii u dambeysay baahinaysa warar sheegaya in madaxtooyo cusub laga dhisayo galbeedka magaalada Hargeysa. Haddaba beerta laga dhisayo madaxtooyada cusub ayaa qoyskii lahaa oo telefishinka Ariel u warramay waxay cabasho xoog leh ka muujiyeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ay sheegeen inuu dhulkoodii ku haysto isagoona ciidii dhulkaasi lahayd aan kala tashan isla markaana uu dul dhigay ciidan dhulkaasi waxayna qoyskana indhahooda laga dareemiyay sida ay uga xun yihiin dhibaatadaasi ay farimo isbarkan u direen labada aqal baarlamaan culimada diinta iyo waxgaradka Soomaaliland waana kuwan qoyskaas oo arrimahaasi ka hadlaya oo aan tusaya dhibaato igu haysata dhulkayga oo aan 18 sanadood maxkamadda dacwada ku jiray markii xukunkayga aan helayna maanta madaxweynaha waddanka haysta yiri waxaan ka dhigayaa madaxtooyo isagoo oo beertaydii gebigeedii ku wareejiyay cagaf military la soo dejiyay kuna bilaabay sees iyo dhisme dadkaygina ay xidhan saaka marka waxaan ummadda u sheegayaa haddii dhibaatooyinka caynkaas oo waxba laga qaban waayo in ay ka dhici doonto dhibaato ka foolxum oo wax walba dhici doonaan ayaan ummadda deew sheegaya beerta waxa la maxay xasan dalab aniguna waxaan hayna maxay xasan dalab waxa xidhan isaguna dadkii uu dhalo oo ilmo maxamed xasan dalaba oo ay saaka militarigu meesha Muuse Biixi keenay madaxweynuhu keenay ee wuxuu dhisay daay xidhan waxana saaran culays aad u fara badan oo ilaahay mooyaan aadam qiyaasi karin 20 sanadood ayaanu dib iyo maxkamad ku jiray dil baana loo geystay dhaawacyaana loo geystay maanta markaan xukunkayagii helayna madaxweynaha ayaa isku dayay inuu nabadayadii laayo xiro qadada loo keenay albaabka guriga laga soo galo geed manina bini aadam baanu nahay intaana waxaan xeerinaynaa inaan dhibaato dhicin oo aanay isdilin dadku intaasoo sanadood aan dhaatada iyo culays ka qabno cid maanaan dilin cid maanaan xidhin dhibaato ma geysano cid talkaya intaan u tagnay kaaleen raacmaanaan dhole maanta waxaan u sheegaynaa madaxweynaha intaan culays hor u qaadan inaan qaadi karin inamadayadana inta guriga dhexdiisa loogu yimaado imaa military xidhi karin gawaadhida aan wadano ee waalidkii saaraya in inta banaanka laga soo dajiyo ku gala aan lagu oran 5 jeer bay noo yimaadeen military go ilaadan walayd ku qaldamay raali ahaada iyo qaldano kuma jirino Muuse Biixi anagu adduunka ma hayno lacagna namuusin wax ma aanan kala iibsan aabahay uu bukaay uu jifa maanta anaga wax yigil how taagan waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliland iyo guurtida odayaasha caaqilada inta jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool dhamaanteed haddaan arrinka maanta waxba laga qaban wixii ka yimaada inuu arrinka tukara ka dhacay oo kale noqon doona anaguna aan dhibashada diyaar u nahay waxaan u hadlaynaa ummadda reer Soomaaliland waxaan cabasho u diraynaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland golayaasha qaranka baarlamaanka golaha guurtida iyo cid kasta oo wax garad ah oo meeshan joogta waxa weeyii Soomaaliland waanu u dhimanay cid noo sheegan karta oo loogu xoog sheegan karta ma jirto dhibaato 20 sanadood oo dhow ka socotay meeshan Soomaaliland dadkeedu waxay yiraahdaan nabadgelyaanu helay oo barwaaqaanu ku jiray waranagu nabadgelyaanu helay ma jirto ilaa maalintii dalka la soo galay ilaa maanta secret war ayaa nagu socda aanan garanayn intii hore oo dhan meel ka socdo waxa weeye hantidayadii horena waanu ugu burburay dib u xoreyntii dalka in laga xoreeyay afweyne waanu ku burburnay aniga ninkii garanay anigu way garanay ka kala dadka u sheegi doona lifekayga mustaqbalkaygiiba waxaan u weynay dalkan dadkayagiiba ku maqan inaanu cadaalad helo ayaa loo dhimanay oo loo baabaayay maanta waxaan u dirayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba golaha guurtida iyo baarlamaanku arrinka meesha ka taagan inay soo involver ka noqdaan waxaanu ka cabanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ma ka cabanaynaa waxaanu ka cabanaynaa beeshu ka soo jeedo oo aniguna ka soo jeedo ma dulmayo inaan dulmi qaatana ma ogoli ciidan dulmayna ma jirto waxa weeyii dhulkayagii waxa nagu haysta rag baa nagu haystay sheeganaya magaca reerkayaga waliba waa laga garnaqay reerkayaga iyo beesheeda ka garnaqay si madaxweynaha cusub markuu yimid dhulkayagii
annagoo u diyaaray inaanu cabasho ayaaba nala yidhi dhulkiini madaxtooye laga dhisaya waanu la kulannay dhulka annagaa labaanu da ku nidhi madaxtooyadana somalilan baa leh wuxuu haddaad doonayso ood ma doonayso inaad madaxtooye ka dhigato nimankaad maadadka tihiin ee secret wallka iyo dagaalka ku baabiiyey faamiliga meel dhulkayga naga dega naga rar waa idinka rarayaa buu marxabiyo guddoon nimankii nagamuu rarin dhulkayagii ciidan buu keenay cagaf baa lagu wareejiyey haddana tii qodaysa baa lagu wareejiyey dhagaxii ciiddii baa la dhigay milatarigii qaranka ee difaacayay dadkan masaakiintaa ayaa maanta la keeno gacantooda ku dhisaya sidii faqashtii halkaanu ku jirray oo afuynana geeyba maanta carruurtayda la geeyey cabdiraxmaan maxamed xidig telefishinka caalamiga Ariel TV Hargeysa